السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاasheen umumuna iyo mar kale caawad Allah subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo waxaan wadaagaynaa baby bluega again mar labaad waxaan wadaagaynaa xanuunka ku dhaca gabdhaha umulaha ah ee loo yaqaano baby bluega ee qaybtiisii koowaad aan ka soo hadlay haddaba qaybtan labaad waxaan u kor istaagaynaa qaybtee bay ka qaadataa cuntada maxaa cuntooyinka ka quseeya ee baby bluega iyo mataqaana sidee buu qofka overcome uu uga noqon karaa ama sidee buu qofka uga samata bixi karaa xanuunkaas marka hore wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keeno oo qadar ah waa in uu ruuxu ku qanco اللهم صل على محمد هذا dhinaca cuntooyinka ka quseeya ayaa waxay tahay hadii aan nahay bilo aadmi hadii aan nahay waxyaabo badan oo waxa jira isku xiran oo u baahan caafimaad ahaan in loo fahmo qaabka ay isku xiran yihiin xaqiiqadii caafimaadka guud oo dhan uu isku xiran yahay wuxuuna isku xiran yahay qofka marka mental ahaan loo asiibo waxa imaanayso in mataqaana dhinaci kalena oo physicalka ahaana ayadana mataqaana dhibaatadii inay gaarto dhinaca kale hadii qofka maskaxiyan uu culays uu ka soo koro dhinacii mataqaana awoodii xoogii iyo qofka wax qabashadiisii iyo noloshiisii ayadana dhinaca kale ayay u baaba'aysaa marka waa laba arrimood oo isku xiran haba isku xirnaatay hada depression oo dhan baa mataqaana soo hoosgalaya noocu doonaba ha ahaadee waxyaabo kala duwan ayaa keena laakiin caawa qaybtan waxay daba socotaa qaybtii ahayd baby bluega ayay daba socotaa siyaabo badan buu depressionka qofka ugu imaan karaa waxyaabo badan baana keeni kara laakiin hada caawa qaybta aan ka hadlaynayo waxay tahay qaybta qusaysa ee gabdhaha umulaha ah also qof walba oo depression haya ama qof walba oo waqtiyada kamid ah mara depressionka mara ana way caawinaysaa ama ku dhex jiraba depressionka wax kale ma aha af Soomaali aan hadaan u raadiyo in uu qofka maskaxdiisa ay isla hadasho ama qofka maskaxdiisa culays ama ciriiri ay soo qorto isla mar ahaantaasna uu dareemo in uu ruuxii farxadii inay ka tagto inuu ruuxii si saani ama si sax u fakari waayo in uu ruuxii uu dareemo inuu wax qabsan kari waayo in uu ruuxii shakhsiyadii uu lahaa uu ka tago inuu ruuxii uu dareemo inuu mararka qaarkood oynayo inuu ruuxii dareemo in uusan sameyn karin waxyaabo fara badan ama qaabkii uu u noolaa hore inuusan ruuxii mataqaana uusan u noolaan karin اللهم صل على محمد haddaba qaybtan xagga cuntada ah qof walba oo horta iskaga shakiyo in uu depression qabo mar walba horta waxaan rabaa oo kale in aan idin cadeeyo waa uu kala xoog badan yahay balse marxalad waa wax bilo aadmiga dhan maraan marka walaalaha uu asiibay marnaba ha isdhihina ina idinka ay idinku kali tahay oo wax mataqaana idinka kali idin soo asiibay ay tahay ha u qaadanina one way or the other badi marxalad ama stress ha loo dhigo ama isku buuq ha loo dhigo ama mataqaana walwal ha loo dhigo ama mataqaana ha loo dhigo kurbo qofka qabata ha loo dhigo anyway oo qofka loo dhigo waxyaabahaas dhan waxay imaanaysaa waxa uu qofka feelingkiisa dareenkiisa kicinaya ay imaanaysaa marka waxyaabahaas oo dhan baa soo hoosgalaya it's a big umbrella oo aad iyo aad u weyn weeyaan waxyaabaha soo hoosgalaya waxyaabo kale oo gooni ka ah oo keeni kara qofka dadka marka ay xanuunsadaan waa ku imaan karaa dadka mataqaana siyaabo fara badan markii noloshooda masiibooyin kala duwan oo adduunyada kamid ah marka ay taabato bilo aadmigu waa ku imaan karaa sababtoo mar walba bilo aadmigu waa daciif weeyaan اللهم صل على محمد marka qaybta exactly caawa sida tooska ah aan u rabo inaan u taabto dhinacu doonaba marka qofka ha ka taabtay horta waxa muhiim ah qofka caafimaadkiisa in uu u hagaajin karo dhinaca cuntada iyo exercise-ka marka la fiiriyo caafimaadka labadaas shay ayuu soo hoosgalaa cuntadaada oo hagaajisan iyo exercise-kaaga oo hagaajisan haddaba clipkan aan idinla wadaagayo
qaabka ay maskaxda ay u shaqeyso. Actually maskaxda waxay kala soo baxdaa oo maskaxda waxay u shaqeynaysaa nafaqooyinka kasoo gaaray jirka ayaa maskaxda mataqaanaa waraabinaya. kelmad kale oo af Soomaali oo kaga fiican waa soo waayay. marka waxyaabahaas qofka uu qaatay oo nutrition ahaan ah oo cuntooyinka uu qofka uu qaatay ayaa waxay caawinayaan maskaxdii inay ama si sax ah u shaqeyso ama si khalad u shaqeyso. su-aasha marka la isweydiinaya waxay tahay haddii ay qofka maskaxdiisa si khalad u shaqeynayso waxyaabaha ku imaan karo baa haddana waxay kasii mid tahay inuu qofkii zaaid inuu u cayilo, inuu qofkii mataqaanaa hurdadii ay ka tagto, inuu mataqaanaa qofkii uu dareemi waayo waxa uu cunayo, joyska uu sameynayo, siyaabo badan ee marka u asiibaysaa. haddaba haddii uu qofka cuntooyinkiisa uu wanaajiyo, socodkiisana uu wanaajiyo, sida clipka ku aragtaanba qofkii waxa u dhalanayo vitaminski iyo mineralski uu u baahnaa maxaa la dhahaa maskaxda ay u baahnayd maskaxda ay quudan lahayd ayaa u dhalanayo. kabacdi markii uu ruuxii uu ku darsado amount of exercise markuu ku darsado, socod markuu uu ku darsado, waxa imaanaysa marka inuu jirkiisa oo dhan si sax ah uu u shaqeeyo. jirkiisa markuu si sax ah uu u shaqeeyana wuxuu soo sii deynayaa ensaamyada loo yaqaano maxaa la keeni karaa farxadda keeni karaa. ama haddii uu jirkii waxyaabahaas ay gaasir ay ku yihiin ay ku yar yihiin ensaamyada keeni kara ruuxii inuu mataqaanaa maskaxdiisii ay yaraato ama ay si khalad ah mataqaanaa ay u fakarto ayaa mataqaanaa imaanaysa. sababtoo maskaxdii ma helin proper nutrition ma aysan helin, cuntadii ay u baahnayd ma aysan helin. marka haddaba cuntooyinkan meesha saaran sidii aan cajalkii hore ooga soo hadlayba mararka qaarkood waxyaabaha keenaya baby bluega exactly waxaa kamid ahaa vitamin D deficiency siyaabaha la isku raacsan yahay. marka inuu qofkii uu maintain gareeyo oo cuntooyinkiisii oo dhan uu hagaajiyo isagoo marka dooranayo cuntooyinkan hadda sawirkooda meesha kaaga muuqda oo aad ka heli kartid omega 3 sida hadda fishka oo kaleeto, ukunta oo kaleeto, cranberryga oo kaleeto, maxaa la yiraahdaa maasha Allah tabarakallah. cuntooyinka noocaas ah iyo fruitska faraha badan, vegetableka faraha badan qofka markuu qaato isla mar ahaantaasna qofka uu sameeyo exercise uu sameeyo wuxuu helayaa release buu helayaa, hurdadiisa fiicnaanayso, waxaa fiicnaanayso jirkiisa qaabka u shaqeynaya fiicnaanayso. intaas marka waa intii physical ahaan jismiga ka dhexdhacaysay. marka wuxuu u baahan yahay ruuxaas inuu terabi la hadlo oo wuxuu u baahan yahay ruuxaas in thatskiisa la saxo ayuu u baahan yahay. wuxuu u baahan yahay in mataqaanaa ruuxii caawinaad badan in la siiyo ayuu u baahan yahay oo xagga jirkii iyo mataqaanaa chemicalski jirkiisa kasoo baxayena waxaa soo saxayo cuntooyinka iyo hadba mataqaanaa haddii u baahan yahay dhakhtarkiisa marka uu la tashto anti depressionka qofka loo qoraayo oo daawooyinka markuu intaas isla helo iyo cuntooyinkiisii uu saxo, exercisekiisii uu saxo, intaba mataqaanaa ruux waxay noqonaysaa ruux inuu asagii mataqaanaa uu overcome uu ka sameeyo oo uu ka helo uu ka awood bato wixii soo wajahay ayay noqonaysaa. marka xasuusnow adiga nafsadaada qofka uu haya ama qofka uu ehelkiisa hayaba waa inaa xasuusnaataa in adiga nafsadaada inaa caawin karto, inaa xasuusnaataa inay important ku tahay, inaa xasuusnaataa in aa heli karto caawinaad, inaa heli karto inaa xasuusnaataa in aa caawinaada raadiso oo mataqaanaa dhakhaatiirtii kusoo takhasustay ama dhakhaatiirta qaabilsan inaa mataqaanaa heshaa oo kala hadashaa mataqaanaa arrimahaaga kala hadashaa. ma aha inaa waalan tahay, ma aha inaa mataqaanaa wareersan tahay, ma aha, laakiin sida dadka hargabka ugu dhaco oo kale ayuu usoo asiibayaa. marka waa inaa adiga nafsadaada inaa u sheegto waaye wax aa ka guuleysan karta inay tahay alxamdulilah rabbil caalamiin, wax aa mataqaanaa iska caawini karta inay tahay. seek the knowledge, raadi inaa qaabka uga dhex bixi lahayd, raadi qaabka u baran lahayd waxaan kusoo asiibay, qaabka u baran lahayd in aad la noolaato oo aad ka xoog badato in aa raadiso waaye oo maskaxdaada ay ku fikirto sidee baa mataqaanaa uga xoog badan karaa oo aan uga caafimaadi karaa waxaan soo asiibay inaa istiraahid waaye oo wixii mataqaanaa ka gudubtid raadisid wadadii. qof alaale iyo qofkii adiga mataqaanaa mental ahaan wax kuu dhimaya ama si xun u arkaya oo leh mataqaanaa ama waa waalan tahay ama maxaa si ka oo kaleeto, ignore it. ha u jawaabin, hana la sheer garayn. haddaad aragto in uusan qofku
fahamsanayn meesha aad taagan tahay iyo waxa aad tahay uma baahnid in afkaa u kala furto mar walba waxaa raadinaysaa qofka adiga kaa caawin kara qofka fahmi kara xanuunkaaga qaabka uu yahay qofka fahmi kara alxamdulillahi rabbil caalamiin walaalaha qurbaha joogo mar walba waxaa helaysaan dhaqaatiir ayaa helaysaan xagga psychiatriga ku mataqaanaa takhasustay ayaa helaysaan marka psychiatric la leeyahay Somali people please ha u qaadanina in psychiatry marka la leeyahay waali in la dhakhtarka waalida may waxaas ma jiraan waali ma aha caafimaadka dhanba laba qaybood waaye maskaxiin iyo waxa weeyaan jismiyan waa labadaas qaybood marka waxyaabaha saadska qofka marka uu fikirayo fikradaha oo dhan dhinac ay ka imaanayaan ayaa waxay tahay maskaxdii ma aha hadii maskaxdaada xanuun ay soo asiibto ma aha inaa mataqaanaa ruuxa waalan yahay ma aha waxa weeyaan ruux caafimaad qaba alxamdulillahi rabbil caalamiin intaas yar ee soo asiibtayna waa wax uu mataqaanaa ruuxii uu ka bixi karo oo laga bixin karo oo laga caawin karo asagana uu iska caawin karo first inuu asaga iska caawiyo weeyaan secondna mataqaanaa in dadkii nawaaxigiisa ay ka caawiyaan waay marka ruuxa laakiin asaga ayaa wuxuu u yahay title caafimaadkiisa asaga u ah isaga laga rabaa shaqsiyan haduu yahay qof weyn haduu yahay oo adulti ah isaga laga rabaa on the other hand marka maadaama anaga aan nahay dad islaam ah maadaama aan nahay mar walba waa ku furantahay inaad mataqaanaa adkaartaada afka ku hayso quraankaaga afka ku hayso isi saarto maasha Allah tabaaraka Allah subhanahu wa ta'ala caawinaad weydiisato intaba mataqaanaa way ku furantahay dhinacaan inaad mataqaanaa dhakhtarkaaga aad la shaqeyso cuntadaada aad ka shaqeyso exercise-kaaga aad ka shaqeyso way ku furantahay iyadana way ku furantahay mid saddexaad oo ku furan waxay tahay hadii uu yahay stress waxyaabaha adiga stresska ku keenaya hadii aad taqaano in aad waxyaabaha sababtoo aad maanta dhan caafimaad ahaan waxa loo kala saaraa root iyo system baa loo kala saaraa hadaa maanta dhan aad ka daba wareeganayso systemka aad ka daba wareeganayso laakiin meeshii rootka ahayd aadan soo xirin hadaa maanta dhan aad ka daba wareeganayso wixii kugu dhacay qaabkii aad u daweyn lahayd kaliya hadaa ka daba wareeganayso laakiin aadan ka soo bilaabin waxa xagee uu ka bilowday meeshuu ka bilowday hadii wali ay taagan tahay ma haraysa dhibaatadaas any kind of caafimaad related ba mataqaanaa ayaa mataqaanaa in codekaas aan usoo qaadan karnaa oo ah like hadii tusaale ahaan hadii adiga ay guri aad joogto gurigaasna ay furan tahay daaqada ay furan tahay banaankana uu ka dhacay baraf uu ka dhacay adigana aad dhaxmoonayso ma waxa u baahan tahay inaad 10 busto is saarto mise waxa u baahan tahay inaad intaad istaagto daaqada aad xirto markaa ka bacdi bustahaaga ahoyd marka xalka wuxuu ku noqonayaa hadaa maanta dhan 20 busto is saarayso oo daaqadiina ay furan tahay xogaa wax yar qabowgii ku hayay bustayaashii wax yar bay ka celinayaan laakiin mar walba daaqadii baa furan oo waxa ka soo galaya daaqadii maxaa la dhahaa qabowgii faraha badnaa baa ka soo galaya marka si aysan taas aysan kuugu dhicin caafimaadkaaga waxa example-kan aan ku siinayo waxay tahay iska xir daaqada iska xir marka waxa ku anfacaya busto yar baa ku anfacaya micnaheeda marka hada caafimaad ahaan wuxuu noqonayaa in aad albaabka dhibaatada ka soo galaysa albaabkaas aad xirto aad isku talagarayso in albaabka dhibaatada ka soo galayso hadii ay tahay albaab aad xiri karto in albaabkaas aad iska xirto marka albaabkaas aad iska xirto then work on waxyaabaha kale ee mataqaanaa ku yaala in life oo aad ka shaqeynayso inaad ka shaqeyso way markaas oo caafimaadkaaga inaad ka shaqeyso way oo aad dhakhtarkaaga iyo waxaaga la socotid marka waxa imaanayso inaad daawadaadii markaas ay ku caawiso wixiina uu dhamaado sababta wixii meeshii uu ka soo maxal lahaa asalkiis uu ka soo kacay ayaa xirtay marka muddo gaaban ay kugu qaadanaysaa in aad dhibaatadii ayada ahayd aad tirto ay kugu qaadanaysaa whereas markay daaqada ku furan tahay dhibaatadii ay noqonayso mid kula joogta ay noqonayso اللهم صل على محمد دمان قبلها أمولها إلهي سبحانه وتعالى وحا إذن كرجينا إنه إلهي دمانتين وإذن عافية إنت قصوين كوذا إلا سوشير قرأي إنت لهاي ولالي أنقو نطابتبا إنت آنا أغين أغاري دونا با إلهي سبحانه وتعالى يغفكو فملكي ستابتبا إلهي سبحانه وتعالى وحان إذن كبريا إنه إلهي وإذن عاوية إنه إلهي سبحانه وتعالى وإذن سقرو wada aku caafimaadaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin saqro idinkana mid kale aan idin xasuusinayo waxay tahay ma sha Allah tabarakallah mar walbo maxaa la dhahaa waa gaari kartaa ujeedada aad leedahay
waa gaari kartaa ilaahay subxaanahu watacaala ha ku gaarsiiyo marka hore u soco sida u garatay inuu xanuunkan uu soo maray u garatay ayaa mataqaanaa aan ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inaa maslaxadiisana mataqaanaa ilaahay subxaanahu watacaala oo meel soka inuu ilaahay uu ku soo saaro oo u garato marka la xiriira dhaqaatiirta la xiriira weydiiya meesha mataqaanaa filayso marka waa inuu qofkii waxyaabahaas oo dhan markuu isku keeno wuxuu gaari karaa any kind of caafimaad bay rulalkan apply garaynayaan ama any kind of ka raali ahaada aad iyo aad waxaan u jeclahay inaan af Soomaali buuxo aan idinkula hadlo laakiin waa idinka raali garinayaa ereyada qaarkood uu afkayga uu soo dafaayo aad baa idinka raali garinayaa اللهم صل على محمد marka cuntooyinkan waxa kale oo ka faa'iideysan kara qof allaale iyo qofkii stresskiisa uu kacsan yahay qof allaale iyo qofkii maxaa la yiraahdaa vitamin D-giisa uu yar yahay intaba way ka faa'iideysan karaan ma aha cuntooyin u qaas ah kaliya ma aha laakiin sourceskan waa sources la soo tijaabiyay laguna soo daaweeyay dad badan oo mataqaanaa isku buuqsan ama dad badan oo mataqaanaa stresskoodu uu kacsan yahay maxaa la dhahaa ama dad badan oo isla hadlay hadba wixii af Soomaali lagu dhihi lahaa insha Allah waan iga soo caawin kartaan waxa kale oo caawinaad idinka weydiisanayaa kelmadda depression maxaa la yiraahdaa kelmad ku aadan oo Soomaali saxiixa ah hadii aad haysaan ila soo share gareey biidnillaahi baari ii soo gudbiya walaalaha af Soomaaliga aniga iga si fiican inta aan awoodo waan isku dayaa in af Soomaaliga mataqaanaa mid saxan uu noqdo laakiin haddana mararka qaarkood waxa laga yaabaa kelmadaha qaarkood af Soomaali ahaan inaan mataqaanaa ay ugu adkaato marka kelmadda depression exactly kelmadda af Soomaali wixii ku aadan ila soo share gareeya ilaahay subxaanahu watacaala dhamaantiin meel alaaliyo meesha aad taagantihiin ba ilaahay ha idin caawiyo dhamaanteenba walaalayaalow haddii aad janaalka ku cusub tahay subscribe garee haddii aadan ku cusbayn oo walaalihii ila sii joogay ka mid tahayna maasha Allah tabaarakallah waxa wixii fikradaada nala soo wadaag mar labaad iyo mar saddexaad walaalo badan oo fikradahooda ila soo wadaagay iyo walaalo fara badan oo toobigi ayaga ku taagnaa iga soo codsaday idinma hilmaamin biidnillaahi baari idinkana insha Allah toobigiyadii exactly iga soo codsateen waa ka soo hadli doonaa hadii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raali noqdo walaalo fara badan oo aan is ogeyn baa waxay iga soo codsadeen topic maxaa gabdhaha oo xayska in Allah la yastaxi min alxaq muxuu gabdhaha xayska ugu soo noqnoqdaa biidnillah cajalkan videogan oo cajalkan ka xiga ama YouTube-kan ka xiga biidnillah baari codsi walaalo fara badan oo gabdhaha ka imaaday awadeed baan qaybtaas aan ku fiirin doonaa haduu Ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raali noqdo dhamaantiin waxaan idin rajaynayaa khayr aan idinka dhamaanin waa walaashin umuna oo mar labaad idin leh هي هذا ودع يا رمضان ما عندها ما شاء الله تبارك الله رمضان وناكسن رمضان تيسيلاي سبحانه وتعالى خير هنقول قارسية برواقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.